wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ahna kusimaha wasiirka wasaaradda qorshaynta oo maalmihii u dambeeyay kormeer ku soo marayay qaar kamida mashaariicda horumarineed ee ka socda dalka ayaa maanta kormeer ku soo maray mashaariicda dhanka waxsoorka casriga ee laga maalgelinayo hay'adda geel waxaana uu wasiir ku-xigeenku soo kormeeray beerta shirkadda waxsoorka ee SBI oo ku taala deegaanka Jaleelo iyo sidoo kale shirkadda habka beerista casriga ee Garden kormeerkan oo waqti dheer qaatay kadib ayaa wasiirka waxa warbixin ka siiyay guud ahaan mashaariicda ay wadanka ka wadaan mas'uul ka socday hay'adda geel waxaana hadaladiisii kamid ahaa geel yani waa wax qabadkeedii labaad ay soo bandhigto marka laga hadlayo inta regionka nimka Hargeysa aynu joogno wuxuuna waxa ay kaga duwan tahay geel mashaariicda kale la qabanayo وما مشاريع اللي نشري emergency development كده أنت لقلو وحلا جين شري لكن واحد يعني واحد لو ذا ليه محاذا يستطيع محاك كان من محان كوكرنا وحي تكنيكال أسبقة كده من أو ميجيل كلاش قيسا تتكبرها وأنا رجعنا إن مشاريع بدنا كلنا نوعنا كلنا يجنا كلنا يهير جلان سان رجعنا سردان صوص إن شاء الله نجيل وحياة وفرح سنتها يعني بعد نرلنا تهيا ما يلاش قيسو ميران يو ليست أنت أسي كدي وحى إسنا هالكاسي كور بحيي وجدد سفر wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland injineer Xuseen Ibraahim Buuni waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaanu ku guda jirnay runtii socdaalkan qiimeyn iyo indhayn aanu ku sameynayno mashaariicda ay wadanka runtii ka hirgeliyeen hay'adda geel ama mashaariicda ay ka caawiyeen dhaqaalaha bulshada reer Soomaaliland hay'adda geel marka waa goobtii labaad ama safarkii labaad ee maanta runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa wax la taaban karo aynu runtii soo aragnay oo ay runtii ka gacan siiyeen ama ka caawiyeen laba ceel oo waaweyn iyo qasabadahan ama tuumbooyinkan waaweyn oo water management oo waraabinaya wax 40,000 oo geed oo saytuuna ku dhow waraabinaya ma runtii mashruuc yar عديقة أما بدقالها رنتي كوب حيوان دقالة كله صدق بقوله كونه $1 ولا بقول يكون تنكون $1 وحين تاودر إني رنتي كعاويين تدخي خبرة هاي سيستم كان هرجليه إني SBI كعاويين شغالة هي مكان شغالين أنا كنت ببريء مركا رنتي مالجلين فربضان أيا رنتي لانك جيل وجاي من شركات دن محلية SBI waxaan runtii si kaliya laabo bogaadinayaa madaxda iyo mas'uuliyiinta runtii sharikadan initiative-kooda lahaa hirgelinta iyo maalgashiga inta leeyahay dhulkooda ku sameeyeen waa wax runtii ku dayasho mudan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa xukuumad ahaan waa runtii horumarka marka laga hadlayo meelaha horumarku ka soo unkamu ka yimaado ay runtii qayb ka tahay inaad maalgashi intan leeg wadankaaga ku sameeysaa waxay kobcinaysaa dhaqaalaha iyo ilaha dhaqaale wadanka guud ahaan dhaqaalaha shakhsigu uu leeyahay ama maalgashadu uu leeyahay way kobcinaysaa shaqo abuur baa ka imanaya dalka iyo dadkaba waa manfac bay runtii badan ay arintani u leedahay waanu ku bogaadinaynaa ganacsatada reer Soomaaliland waxaan runtii ku boorinaynaa inay ku daydaan ilma geela Arab oo ay runtii maalgashi wadankooda ku sameeyaan sectors badan oo runtii wadanku u baahan yahay in laga maalgeliyo maalgashi laga sameeyo ayaa runtii jira oo fara badan xukuumad ahaanna waanu soo dhaweynaynaa waanaanu gacan siinana diyaar banu ulana inay ganacsatadu wadankooda maalgashadaan wax kasto uu saamaxay inuu maalgashigooda hirgalana contributionka xukuumaddu diyaar banu xukuumad ahaan lanahay geelna waan ku bogaadinayaa runtii waanaanu uga mahad celinayaa inay bulshadii reer Soomaaliland guud ahaan cidii initiative iyo idea la timaada ay dhaqaale la daba taagan tahay xukuumad ahaana qayb banu arintan ka nahay qofka waxa looga baahan yahay inuu isagu idea la yimaado aragti ama fikir ganacsi dhaqaalihii lagu maalgelinayay ganacsiga ana qayb yar uu la yimaado inta kale waa laga caawinaya